waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id annagoo ah saraakiishii xaashleydii agoontii waayeelkii dhulkii aan degganayn ilaa 1943 ayaa dawladdii Soomaaliya naga barakicinaysaa waxaan codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare dad wax yaqaan ayaa dawladda ka mida in qaanuunka dalku sida uu yahay nala ku maamulo aan nala ku maamulin qof fikirkiis aragtidiis iyo rabitaan nin shacaba aniga guriga aan degganahay awowgeeyaa la siiyey aabbayaa ku soo noolay anaa ku nool maantana أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله maantana waxaa la leeyahay niman shacab oo dan leeyahay oo dhiig yacaba oo dadkii xarbu ku taajirka ahay oo 30 sano lacagta helay oo dhiig dadka ganacsaday ayaa la siiyey qaanuunku ma ogola ma qabo wax suuragalana ma haddii ay ka furso weydo oo ay nagu geeydo waxaan diyaar u nahay intii shabaabku banaanka nagu dili lahay guryaha anaga ilmaha inaan ku dhex dhimanno insha Allah bismillaahir kariim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh